siyaasi Axmed Muumin Said oo ka tirsan urur siyaasadeedka cusub ee wadani ayaa si ballaaran u soo dhaweeyay natiijooyinkii ay Somaliland ka dhaxashay shirki ka dhacay magaalada London 23 bishan. xalay uu tiritaanka shirkaasi aan tagnay madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada ka qayb galeen guulni bay noo ahayd oo soo risay tagaro waxaan ku faraxsanahay weyna guula in shirki laga dhawaaqay Soomaaliya iyo Soomaaliya wada hadasho taasina guulay kulli taacad baan soo dhaweynaa loo wada hadlo qadiyada Soomaaliland iyo gobolka isku taaga Soomaaliland kullu waa muqaddis oo wax marama ma galiyo oo wuxuu ku xidhay anagu siyaasadda kuma xidhno wuxuu ku xidhay shacabka maanta ma ogolo in maartaan la midoobo Soomaaliland mar labaad laakiin waxa loo kuliyay in wada hadlo. siyaasi Axmed Muumin Said waxa kale oo ka warramay in urur siyaasadeedka wadani uu diyaarinayo liisaska dadkii isku taagi lahaa doorashooyinka golaha deegaanka xildhibaanadii golaha deegaanka xuduudooda ku jirnaa oo in ka saaka loo xildhibaan iyo subax wanaag ka yimid kulliitana maalmaha soo socda hadii ilaa waxaan soo saari doonaa difacadii horeysa liiska musharaxiinta. maruu ka warramay xaaladda guud ee gobolka Awdalna waxa hadaladiisii ka mid ahaa xaaladda guud ee gobolka abaaraha ka dhacay waygu kala abaaro badan la jira لكن حالة جودة من قبل كنا بنتكلم عن نقطة نتكلم وواحد دلوقتي قبل كبيرة طلبات وح دلوقتي ممكن هو وحكمنا أوضل ده كسمة دموين كليو قبل قا وحاجة جديد كدولة أيضا كلفت وحوي جديد كان موجود. ugu dambeyntii siyaasigu waxa uu si kale u dhaliilay caburinta saxaafadda maamulka awdala مثلي دولة ماتا وحكومة إن كون تومان إن الصحافة أما قعدت ولتنا أما حرق ولتنا وايو. عبد الله علي يوسف هون كيبل تي في مقالة بورما.